jigjiga waan kala xidhannahay dirdhaba waan kala xidhannahay waa magaaladu way fiican tahay waa magaalo barakaysan oo nin welihi dhagaxa u dhigay intii dawladdu ku lahayd magaalada ayaa naga dhiman wadooyinkii baa naga dhiman waxa sababta noogu daran waa santarka iyo maxay ahayd ambalaasyadii iyo maahina dawgii iyo ma toobalaykii waxa noogu sii daran waa inta weeyaan 2001 bishii 12aad 20keegii iyo halkan u soo guurtay wadooyinkaasi waa kuwa laga maarmaanka magaalada Cagaarweyne waa qabale ka tirsan degmada Damballe gobolka City dawladda deegaanka Soomaalida waxa ay qiyaastii 90 kilomitir u jirtaa magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida Cagaarweyne waa qabale baaxad leh waxa hoos yimaada 16 nus qabale ama mahmar waxa ku dhaqan bulsho tiradeedu ay dhan tahay 25,000 oo shacab ah magaaladani waxa la aasaasay bilowgii sanadkii 2001 waxaanay jirtaa oo ay dhisan tahay ilaa 22 sanadood taariikhda iyo xogaha xilliyadii kala dambeeyay ee magaaladani soo jirtay waa kuwo mugweyn magaaladani waa magaalo dhismaheeda ay ku duugan tahay qiso cajiib ah magaalada bilowgii waxa laga dhisayay ama laga bilaabay meel kale oo ka agdhow goobtan hadda ay degan tahay waxaana halkii ka soo raray oo dhagax dhigay goobtan hadda ay degan tahay sidana ku dajiyay Allah u naxariisto ee Sheekh Cali Geelle oo ahaa wali goobtani deganaa Cagaarweyne waxa ay ahayd goob diinta lagu barto waxaana ka soo baxay arday badan oo baratay Quraanka Kariimka ah oo hadda ku kala sugan daafaha dunida Cagaarweyne waa magaalo bilic leh oo koraysa waana goob wax soo saar bulshada ku dhaqan magaalada iyo nawaaxigeeda waa dad ku baraarugsan horumarinta magaalada ganacsiga bilicda iyo dhismayaasha magaaladan bulshada ayaa dawladda ka codsatay in hoos loo eego baahiyaha ka jira sida jid ama wado ay maraan oo isku xidha magaalooyinka kale iyo magaaladan Cagaarweyne waxaanay bulshadu sheegeen inay guud ahaanba kala xidhan yihiin dhinacyada kala duwan ee magaaladani looga baxo haddaba si aan wax badan ugu ogaano taariikhda magaalada marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay iyo halka ay maanta marayso baahiyaha ka jira iyo caqabadaha ku gadaaman horumarinta dhinacyada kala duwan ee nolosha bulshada iyo dhismaha magaalada waxa aan waraysi la yeeshay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaaladani Cagaarweyne oo xog ogaal u ah jiritaanka bilowgii ilaa iyo hadda ee magaaladani Xaaji Maxamed oo Faarax Deeriye iyo Xaaji Cabdi Bulbul waxa ay ka mid yihiin odayaasha ku dhaqan magaalada ay xog ogaalka ah waxa aanay ka warameen xogta magaalada iyaga oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxa ay yiraahdeen Bismillahir Rahmanir Rahiim anigu waxaan ahay Xaaji Cabdi Bulbul Caynaan duqeyda Cagaarweyne ayaan ka mid ahay haddii aan waxoogay ka soo sheekayna taariikhda magaaladan aasaaskeygii hore meel boorka la yidhaaho halka ay degan tahay bari ka xigta baa horta yaa bilowgeegu ahayd halkaa kolkii inama yaryare ay makhaayado ka shideen ama ay meherado yar ka sameeyeen 2 inan ama 3 iyagoo ah halkan weligii fadhiyay Sheekh Cali Geelle Allahumma raxin wuxuu yiri magaalo ma doonaysiin reer Cagaarweynow haa baa la yiri dhagaxa ay dhiga buudi dhagaxa si soo qaada buudi waan soo qaadnay halkaan loo dhigay miskiin ma doonaysiin haa waan doonaynaa dhagaxa soo qaadudi oo dhigay isaga dhagax dhigay magaaladan isaga Sheekh Cali Geelle Allahumma raxin isaga dhagax dhigay magaaladan saasay ku degtay waxay degtay 2001 bishii 12aad 20keegii iyo halkan u soo guurtay xamaanta soo qaadatay halkii boorka ay ka soo kacday halkan imatay taariikhdaas waxa ka dambeysaan u malinayaa ilaa 20 sano inay tahay baan ku wada 20 sano inay tahay yaan ku wada inta ay degan tahay inta weey 2001 markay degtay 2002 miskiidka la noo bilaabay magaalo barakaysan weeyay noqotay si fiican bayna u socotay u dhisantay kulley waxa naga dhiman intii dawladdu ay ku lahayd baa naga dhiman wada malihin
heer center ma lihin waxyaalihii badnaa dawladda aan uga baahnayn wax badan baa naga dhiman waxyaalahaasaan u baahannahay magaaladu way fiican tahay waa magaalo barakaysan oo nin weligii dhagaxa u dhigay aad bay u barakaysan tahay taariikhdeedu intaasay degan tahay maalintii laba yaroo inan baa halkan soo degay oo nin waliba aw sito muxuu ahaa kiish bariisa iyo kiis sonkora aw wato ayaa soo degay maanta maasha allah halkay maraysa waa la arkaa bakharaa laga dhisayaa maanta haddii ilaahay laga helo aad bay u fiican tahay intii waxaa naga dhiman intii dawladdu ku lahayd magaalada ayaa naga dhiman wadooyinkii baa naga dhiman waxaa naga dhiman heer santarkii baa naga dhiman waxaan leenahay on codsanaynaa in kow waddo jigjigo waan kala xidhannahay dirdhaba waan kala xidhannahay wax alla wax waddo ahoo noo furani ma jiro buurtaasaa nagu dadban waxaan codsanaynaa waddo kow marka koobaad marka labaad heer santar baan codsanaynaa dawladda iyada waxyaalaha badan baan uga baahannahay magaaladuna maasha allah way fiican tahay alxamdulilaah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa run waxaa naga dhiman wixii horta waxa noogu xun waa jidadka jigjigo waan kala xidhannahay dirdhaba waan kala xidhannahay waa magaalooyinka ugu waaweynaatay dirdhaba gobolkayagiiba ku yaalla sidaa awgeed wixii dawladda aan uga baahannahay ee naga dhiman baan ka codsanaynaa geesta kale waxaana waraysi la yeeshay gudoomiyaha qabalahan iyo cagaarweyne Axmed Maxamuud Halab oo ku magac dheer gadha iyo waliba Maxamuud Cabdi Xasan oo isna ku magac dheer Bidhi oo ah madaxa arrimaha xisbiga sidoo kalena ahaa gudoomiye hore oo maamulayay qabalahan iyo cagaarweyne waxa ay ka warbixiyeen doorkooda maamul baahiyaha jira sidii ay dabooli lahaayeen iyagoo oo baaq u diray dawladda kana codsaday in wax laga qabto baahiyaha ka jira goobta sidoo kalena gudoomiyaha qabalaha ayaa qurba joogta u dhalatay qabalahan iyo cagaarweyne ka codsaday in ay dhistaan oo ay maalgashadaan dhulkooda أنا مقعد وحلا أحمد محمود هلب gudoomiyaha santarka cagaarweyne ee degmada Tambal gobol Kaasiti deegaanka Soomaalida bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku bilaabay horta gaar ahaan qaba santarka cagaarweyne horta kulley waa santar aad u ballaaran waa santar inta soo gabar hoos mahmar hoos yimaadaan waxa hoos yimaadaan 16 isqabale gabar hoosaad bulshada u weyn marka la soo eego degmada Tambal waa eed oo horeeyo ku jiraan aku jiraan kulley haddana kulley bulshada daalta way horumarkeega iyo qaabka u socoto waxa qodaalka iyo beeraha soo saarka sida dalaga dhulka muxuu haayay dhismaha aqalada iyo guryaha kulley way socotaa ilaahay u taageeran lahay odayaasha soo sheegeen kulley xilli la asaasay xilligaas ah 2000 bay ahayd iminkan 2000 ku jirnaa 3 waxaan leeyahay markaa dadka u dhashay wadanka ee qurbajoodka ama ma qurbajoodka ee ka maqan wadanka ee wax ku soo darteen inay ku soo darsadaan iminka rag badan waxa jira iminka baadka buurta u baxdo wax ku darsaday oo bilix soo kordhiyay oo horumar ka wada oo bakhaar ka wada oo bugul ka dhistay ya waxaan leeyahay marka dadka u dhashay cagaarweyne ka soo jeeda inay wadanka wax ku soo biirsadaan iyagu la foog waxa taa wax u qabsanaya wadanka u dhashay walkan weeyaan maanta hadii la kala yaaco halka markasta ku soo heenaya war wadanka waxaan leeyahay dadka dibadda joogay wadanka u maqanow wax ku darsada dawladdu kulley inta way wadon marka waxa isku bax ku biirin kartaa waxaan banaystaa inta lagu dara ragga maanta dadaalay jidka maanta wada shabeella wadana kulley way maadsan raggaas aad buu dadaaleen reejibutile qurba joogle waxaan leeyahay waa inaha baliyana si fiican loo yaad u dadaalsiin cid kale wada qaban doontii ma lahayn intii talkan wada qabateen laakiin inta qadif ka joogtay horta ku soo birtaan lahayn anagiyo waxa weeyaan intii qabalaha iyo inta u dhalateena ee soo kara kulley way dadaalayaan
marka waxaan leeyahay dawladuna wixii taalkeega inay kulli ku soo biirsato waxa weeyaan dee waddanka maamulasay waa qabarahoogi waxa sababta noogu daro waa hay centerka iyo maxay ahayd ambalaasyadii iyo maahina dawgii iyo ma toobaleykii waxa noogu sii daro waa inta weeyaan marka toobaleykna kulli anaga dadaalana oo kulli inay bulshadu ay ku darsato ama ganacsigu intuu xaqaato dee uu taga meeshii oo kulli wuxuu haystay intuu la tago wixii kale dawladdu ugu dartaa kulli muhiim noqonaysa say ahaan jirtay oo waxaan manaysanaa intaas milyan manaysanaa 1 milyan manaysanaa 600 ku manaysanaa waxaan loogu daro wax in sababdana weey marka insha Allah inaan 2000 iyo 16 xabash ahaan ay kulliyaan wax isla qabanqaabinaan qorshe loogu soo qorsheysan marka inta doon wax shirnay inaan dil ato balo sameeyno ayaan qorshe loogu jirtay sanadkan soo socda bilowga halkan sanadka waxa la dhisay foundation Abdullah dhisay halkan ma agteena inay inta kala dawladda ku darasta 2016 kan markaan ku jirnay markaan cusub bilaabno qorshe dawladda ku darasta miisaaniyadda dawladda ayaa iska wada ee saddex soo bixisay ayaa jeclay qorshe kala hore 2016 qorshahaasi ahaa 16 waxa qorshe wax ka soo galay galbeedka xaga soo jabay laakiin 16 uu qorsheysay sida awgeed kulli wixii la qaban baa qabsooma wixii alla qabto uma qabsooma kulli waxaan leeyahay inta maanta inta maqalka iyo inta arkaysa inta waxaan leeyahay soo dhawaad horta soo dhawaad waddanka soo dhawaad leeyahay biyo horta alxamdulillah laba ceel baan leenahay labadu way shaqeeyaan magaalada laba qabsan tahay waa kubada labaad wixii daba ka xiga oogada ceel baa abiya wixii qabla ka xiga ceel baa abiya imaka waad arki doontaa biyo way socdaan kulli waxaan maanta alxamdulillah ku jirnaa waan leeyahay maanta alxamdulillah ku jirnaa bulshada cagaan weyne maamulkeeda tahay haddii aad bulshada isu keento oo kulamo gashaan oo tashan sameysaan dawladda ma loolan karaa idinku waad ka maarmi kartaan kulli inta wax ku nooleen bad dawlad maahayn dad baa ku nooleen salaam sanahay dawladda lafteedu waa dadun dadkana dadkii joogaba ka hadee waxa la yaabaan aaminsanayeen wax qabsan karayaan laba qof isku taabaya beer kartaba laba qof isku tagtay bulsho kale ma habo marka hadafka fiican wax soo saar u keenaa waan isku tagnay wax soo saarna ma wadnaa marka waxa weeyaan waxa la yahay dawladda kulliyeed laga maarmay waa dawladdeennii waxa weeyaan markasta waa wixii laga taaro la tashano way muhiim weeyaan ismaamulka de waxa weeyaan hadee tarada wixii inuu awoodeen inuu caawiso ونسوا وحنا سواء نوع عاوز waxaan oo leeyahay kulli wada shaqeyn fiican ma leeyahay isku xilnaansho wanaagsan kulli dawladda shaqada way shaqeeyay wax shaqo ma soconays waa silsilad bal laba xali waa bidix iyo midig haddii isku xilnaan way wax shaqeynaya ma jira iyana misanaan isku xilnaan shacabka dawladdu xarigaas haduu waan wax shaqeynaya ma jiro oo hoggaan markaan wadan hoggaananahay way isku xilayeen dadku way dad jecel weey odayaal dhalinyar haween qaab muxuu ahaayay inta way isku xilayeen وحويان مركا أمك قالي إحلاشها هذا مش كبحان في الدولة منايا يا محي حاسدني محي هنا حوين ما هنا فشل أسفل الله قم ما هنا دولة نعول الشيء ما هنا وحاسب إن كل كهرباء منايا وعيمك وحنا براروين لكن بريء آخر كل وعشرة إلى الدولة تبع الفهم جل لكن يقول فهم جل هاي ساسر دلنا الرحمن الرحيم أنا كم قاعد واحد إلى محمود عبد حسن وأهنا مضحى مها حسبك سنترك عقال ويلي دقمة الضمبل هولا بدن وكل جديسن والله صومري أنا جاي قدوبيها حسبك كايه مر وحن كاها قدوبيها سنترك عقال ويلي هولا بدن دي كل جديسن أو مرك الله سوقاته عبد محمود عمر مركي أو جوجي أنا قدوبيها كاها هالكن دباب بدن وين صومري إنك كنا إلهي ما هديبان لقو جيران لقو دقي هاي ضد كواحد دباتي هاي مجيرو هدو مقالك يمادو إياه هدي كلابا إن تاسي واسداتك هالي وضيا ذي قدوميه ويكسو شيكيين هرمر مقالد وحي لئي مريسا ويلا إماتي ما أنت ميل في عنا وي مريسا وحسن معناها انت اي كسو شيكيين marka aan ku daro wadooyinkaasi waa kuwa laga maarmaanka oo kulli de waxay ku diraan dadkuna ma deynayeen wax uu ku darsan karaa tabartoodu dadka magaalada galaayna rag dumar odayo maamul intuba way isku xilayeen jamcada jibba wax ku gooyaan wixii ay ka helaan xagga dawladda ay nagaga caawisana waxbay ku qabsanayaan
isku soo wada duub oo shacabka iyo maamulka magaaladani Cagaarweyne ayaa dowladda ka codsaday in hoos loo eego baahiyaha kala duwan ee ka jira goobtan baahiyahaasi oo ugu horeeyo jid ama wado ay wax mariyaan sidoo kalena ay wax soo marsadaan waxaana intaasi ku dareen isla markaasina ay hoosta ka xariiqeen maamulka iyo odayaashuba in guud ahaanba aanan isku soconin deegaanada kale ee ku dhow magaaladani Cagaarweyne Cabdixamiid aw Maxamed ayaan ahay Cabdixamiid khadka fadlan si sheer gare muuqaalkan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay khadka ku jira